بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa caawa inaan sharaxaad ka bixiyo qaabka loo isticmaalo ID kaarada haday noqon lahayd ID kaarada loo daabacayo ardayda ID kaarada loo daabacayo macallimiinta iyo qaabka loo daabaco ma garanaysaa shahaadooyinka iskoolka shahaadooyin bixiyo oo kale iyo qaabka loo daabaco bedelada marka qaybtaas ayuu ku saabsanaan doonaa videogeenu inta aan sheegay qaybood waxay ku jiraan hal meel oo ah qaybtan ay ku qoran tahay certificate tan ku dhufto certificate waxaad arkaysaa intaas oo qaybood bay ka kooban tahay labadan qayb ugu horeeya waxay noqonayaan meeshii laga daabacayay shahaadooyinka iyo waxa weeye bedelada qaybtan ku xigta waa meeshii laga daabacayay ID kaarada ardayda ama laga hagaajinayay ID kaarada qaabkay noqonayeen qaybtan ugu hooseysana waa qaybtii laga hagaajinayay ama laga daabacayay ID kaarada ay yeelanayaan shaqaalaha ama macallimiinta iskoolka marka haddii aad qaybtan isticmaashid waxa weeye muhiim bay ku tahay haddii aadan isticmaalinna waa iska xiraysaa marka waxaan ku hormaraynaa qaabka loo daabaco shahaadooyinka oo kale wixii shahaado la xiriira halkan ayay ku jiraan ma garanaysaa ama bedelo maaragtay la daabacayo waxaan ku hormaraynaa generate waxaan dhahaynaa certificate oo markaan daabacayno markaan rabno inaan hagaajino shahaadooyinka ama soo gelino shahaado cusub oo dhisaynkoodu nooc kale yahay qaybtan ayaad gelaysaa video kale aan ku arki doonaa markaan rabnaa inaan daabacno waxaan leeyahay generate waxaan dooranayaa glasskii aan rabay sanaa waxaan rabaa form 4 oo kale form 4 waxaan ka rabaa waxaan kasii rabaa shahaadada hadda waxay noogu jirta hal shahaado oo ah transfer certificate oo ah bedelka ardayga haddii shahaadooyin kale ku jiraan halkan ayaad ka dooranaysaa marka ardaygaan rabnayna arday ka mid a form 4 kan rabnayna bedel siino search markaan dhahno wuxuu inoo soo saarayaa ardaydii ku jirtay glasskan kulli way u daabici kartaa haddii aad rabtid inaad u daabacdid ama waxa weeye hal arday ka mid haddii aad rabtid ardayga un baad click siinaysaa kadib waxaad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay generate oo ah u daabac generate haddaan ku dhufanno wuxuu inoo soo saarayaa meeshii laga daabacayay shahaadada saa ujeedid shahaadadiisa ardayga waatan waxbaa ka khaldan waxa weeye halkan customka oo kale baad hagaajinaysaa default baa ka dhigaysaa think waa kaasaasay ku hagaagsan tahay marka saa ujeedid wuxuu kuu soo saaray ardaygan magaciisii ma garanaysaa sawirkiisii iyo maaragtay wixii qoraal dhexda ku qornaa shahaadada lahaa kadib saxiixii maamulaha iyo qaybaha kale maaragtay wasaaradda iyo baad halkan u banaynaysaa kadib waxa weeye ardaygu saas ku qaadanaya shahaadada ama bedelka saa ujeedid marka qaabkaas fudud ayaa loo daabacayaa waan aragnay qaabka loo daabacayo waa easy haddaa arday badan u daabacaysidna waxa weeye click baa wada siinaysaa laba arday oo kale u daabacayna generate baan dhahaynaa labada ardayga wuu soo hoos dhigayaa saa ujeedid ardayga labaad iyo ardayga koowaad labada u daabacaysaa qaabka loo edit gareeyo waan arki doonaa shahaadada naftirkeeda dhisaynka loo bedelo waxaan aadaynaa qaybtan ay ku qoran tahay ID kaarka qaybtan ID kaarka waa laba qaybood bay ka kooban tahay qaybtii ardayda ID kaarada looga daabacayay iyo qaybtii looga daabacayay macallimiinta ID kaaradooda marka waxaan ku hormaraynaa student ID card tan student ID card ku dhufanno wuxuuna keenayaa qaybtii ardayda waxaan dooranaynaa glasskan rabnay oo kale form 4 baan dooranaynaa qaybtan ka rabnay form 4 waa ID kaarada waa laba qaybood sayna u jeedid laba nooc bay noo samaysan oo nooc horizontal oo jiifa iyo nooc vertical oo taagan marka midka aad u daabacaysid baad dooranaysaa iskoolka hadduu kuwa taagan ID kaarada taagan isticmaalo iyo hadduu kuwa jiifa isticmaalo horizontalka kale haddaan fiirino search baan dhahaynaa arday haddaa ka mida rabtid ardaygun baad dooranaysaa generate baa dhahaysaa haddaa arday badan rabtidna iyaga dhan baad dooranaysaa generate baa dhahaysaa marka ardaygaasaan rabnaa generate baan nidhi ID kaarka qaabkaas ugu daabacayaa oo qaab standard oo aad u qurux badan saa ujeedid magacii iskoolka magaciisii loogada halkaas u saarayaa magacii ardayga sawirkiisii informationkiisi soo ma jeedid marka qaabkaas ay ugu daabici kartaa ama waxa weeye waxaad samayn kartaa qaab vertical ugu daabacaysaa search baad leedahay verticalka arday ka mid aan rabaa inaan u daabaco ardaygan oo kale generate baan dhahayaa generate markaan dhaho qaabkan ayuu ugu soo saaray verticalka marka waxaa laga yaabaa
qaabka inuu ku anficin meeshan laayadka ay ku qoran tahay portal ka dhigaysaa qaabka aadka u quruxda badan buu kugu soo saaraya. marka labada nooc midka isticmaashid buu dooranaysaa qaabka ayaa ardayda ugu daabacaysaa. waxaan ku xijinaynaa qaabka macallimiinta loogu daabacayo ama shaqaalaha ID card-ka. waxaad tegaysaa generate staff ID card, kadib waxaad leedahay ID card-ka sidoo kale iyaga iyo ardayda waa isku mid, horizontal iyo vertical midka u daabacaysid. horizontal daabacaysid sergi baa leedahay, qofka aad rabtid macalinka aad rabtid oo kale baad ku dhufanaysaa Faadumo oo kale, generate baan leenahay. saa ujeedid qaab horizontal ayuu uga dhigayaa, portal halkan ka dhigaysaa saa ujeedid Faadumo. marka colorkii waa hadda ka maqan, printerkaygaan color lahayn, marka PDF haddaan ka dhigo waxaa ujeedaa color buu sameynayaa. hadduu printerkaagu leeyahay maaragtay color automatic baad uga dhigaysaa. saa ujeedid macalimadan ID card-keedii isagoo horizontal waa kan. haddii aan rabno vertical inaan ka dhigno, vertical baan u bedelaynaa, sergi baan leenahay. mar kale ayaan dooranaynaa macalimadii qaab verticala, sida ardayda kale generate baan dhahaynaa, way fududahay. halkan ayaan bedelaynaa, portal ayaan ka dhigaynaa. saa ujeedid macalimada ID card-keedii oo verticala waa kaas. marka labada qaab midka isticmaalaysid qaabkaas ayaad u daabacaysaa. waana qaab aada u fudud. waxa weeye waxaan filayaa inaad fahanteen. haddii ay jiraan waxyaaba aydan fahmin waxa weeye waad soo weydiin doontaan. mahadsanidin.